qaybtii 16 ee silsiladii jacayl dhiiga ku nool tarkaamada way waxaa silsiladii ka soo dhaxbaxay wiil sinaba u jecel murabilan gabadhii casaydii cudoon ahayd cirka rooba dhaca waa lagu matalay cadaada ayuu wiil ka soo calmaday waa dhammaal jacayl oo laga soo dhiibay magaalada cadaada oo ku socda murabilan inkastoo dhibiyo jacayl dhigaa ku galay oo dhaayuhu weli halkiisii dhugtaan rag ku dhay karaa jooga dhinacyaga erayadaas iyo kuwa kaloo lagu hoga tusaalayay birjeex inaan gabdhaha cidla lagaga tegin ayaa dhanka iyo cadaada inooga timid dhacdhac hadal ku yimid waxaan kuu dhigmay waa lagaadhaye dhexda xidha marada waa erayadii abwaan liibaan maxamuud xirs codka dhagihiina ku soo dhacayay waa jamaal heello oo ka tirsan kooxda xidigaha laaxankii bishaar wadani muusiga waxaa ku lanay hayno la soco silsilada dumar kayaga dhayaha kulada dhirta ubax beliya sida dhool halka gugu dhulka iyo cirkaba dheeha ugu yihiin dhawti dumar kayaga dhayaha kulada adayga dhexyar dumar la jirin dhammowa bahamiyu kali ku dhalay inkastoon dibyaari dhayal wiil ku dhalan haatandha adayga dhexyar dumar la jirin dhammowa bahamiyu kali ku dhalay dhinac mare dhuuba dumar cidlaada uga siide helmadahamiyo dhahmaayada dhaqankee inaiyo dhaxalkiyo oo hidaha ninka dhinac mare dhuuba dumar cidlaada uga siide helmadahamiyo dhahmaayada dhugtaan raa ku dhaay karaha dhooban dhinacayaga inkastoo oo dhibiga jacaliga ku gaalayo dhayuhu halkii waalisi dhugtaan raa ku dhaay karaha dhooban dhinacayaga ku gaalay dhacdhaxaada alaiya wixii aanku u dhigmay waa laga adhayina dhexda xiro marada dhaawicii horiya wixii dhidhif ku gaalay dhacdhaxaada alaiya wixii aanku u dhigmay waa laga adhayina dhexda xiro marada dhaqankee inaiyo dhaxalkiyo oo hidaha ninka dhinac mare dhuuba dumar cidlaada uga siide helmadahamiyo dhahmaayada dhaqankee inaiyo dhaxalkiyo oo hidaha ninka dhinac mare
dhuuba dumar cilada uga siidhe helmadaha miyo